بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa injineer maxamed xasan saciid kuna magac dheer maxameere ahna gudoomiyaha iyo asaasaha Taleex Professional College daawade waxa farxad gaar ah noo ah dhammaan haddaan nahay bahda Taleex Professional College inaan idin la wadaagno tix gabay ah oo runtii uu noo hibeeyey noo soo diyaariyey abaal weyn aan uga hayno garashadiisa iyo soo diyaarintiisa iyo isku xilqaankiisa mid kamid ah ardayda wax ka barata Taleex Professional College kaas oo ah Maxamed Kilaas Xaashi runtii Maxamed wuxuu kamid yahay bahda waxbarashada ku soo dhex jirtay muddo far badan dalkana ka qayb qaatay horumarinta dhanka waxbarashada haddana kamid ah ardayda wax ka barata Taleex Professional College qaybaha la xiriira computerka iyo typing skillska farxad gaar ah noo tahay waxaan rabnaa inaan idin la wadaagno tixdaas nala daawada tixdiina waa kana asaga oo akhrin doona iyo muuqaalkiisaba aad iyo aad u mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم magacay waa Maxamed Kilaas Xaashi laqab ahaan aan ku ah Kilaas marka waxaan kamid ahay ardada macahadka Taleex College wax ka barta computerka iyo waxyaalahaas horeyna wax badan waxaan soo ahaa macallin ka iskuulaadka dalka wax ka dhiga in badan tacliinta ka soo shaqeeyay marka tani waa tix oo hal abuur ah ama hees la oran karo oo loogu talagalay ardada iyo dadka waxbarashada jecel inay ku baraarugaan siba waqtiyada rabshaduhu jireen waayadii hore in rabshooyinka iyo waxa ardada laga waaniyo cilmiga la jeclaysiiyo ay fahmaan dalkooda inuu dal qiimo badan yahay khayraad badan uu yahay oo inay wax u bartaan loo baahan yahay marka waa tixdan hal abuurka ciwaankeeduna waxa weeyaan ku celceli cilmiga baro intii aad wax kale ku mashquuli lahayd inaad cilmiga ku celceliso oo mar walba si fiican aad wax u barato ayaa kaaga fiican intaad sheekayn lahayd ama waxyaalo kale oo macno lahayn aad ku mashquuli lahayd marka hadda tixdiyaan bilaabaynaa ciwaankeedu waxa weeyaan ku celceli cilmiga baro ku celceli cilmiga baro oo laba jeer lagu celcelinayo waana lagu luqeyn karaa dadka kuwa fanaaniinta laakiin hadda waxaan isaga akhrinaynaa si caadi ah oo midhaha ayuun baan akhrinaynaa وطبعا dadku waxay u qaateen cadawgooda inay iyaga dhaxdooda cadow isku yihiin laakiin sida ma aha cadow inoogu daran waa kan faqriga iyo gaajada inaan ka baxno marka marka koobaadba waa inaad ogaatid adigu inaad u baahan tahay inaad faqriga ka baxdid oo aad wax baratid oo noloshaada aad maarayso oo marka koobaad marka labaad oo taa markii aad gaadhana وطبعا haddaad maal heshana waa wax kala iman hayo oo caashaq iyo waxba iman iyo waxba waan aroosi marka ka bacdina caruur baa iman saanay u sii soconaysa caruur haday timaadana caruurta inaad wax bartid iyo cunto iyo raashin bay ka rabaan طبعا haddaad caruurtaada ku filaatana waa inaad haddana waalidka wax u tarto marka bal waynu akhrinaynaa midhahan dadka oo dhan kolay buugna waa u jira laga sameeyay iyadii kuwa kale tiro badan inkastoo buugan si rasmi u daabicin haddana uu diyaarsan yahay marka waxa la dhahayaa cadawga ma dheero calooshaada leewaay cawa kuma qalayse ku celceli cilmiga bar caashaq wuu imaano caruur buu sidaaye intay ka rabaane ku celceli cilmiga bar cashiiraad qabtaayo cidla kama imaane caawimay rabaane ku celceli cilmiga bar calanka buluuga cadow baa ridaaye cudud buu rabaaye ku celceli cilmiga bar ciideennu waa hodano caarifiin khabiira culimay rabtaaye ku celceli cilmiga bar badaheena ceegaagan cusba iyo kalluun cid kala dhurayse ku
celceli cilmiga baaro casharkaaga nuur kale cimrigaa hadduu koro cisigaaga weeye ku celceli cilmiga baaro barahaaga caalimka casharkuu ku tababaray caqligaaga kaashoo ku celceli cilmiga baaro ceelasha batrool quban cunsurka macaadinta casrigeenna baaro ku celceli cilmiga baaro caalimiin dhakhaatiir caafimaad u tababara cudur soo daweeyo ku celceli cilmiga baaro cayaartooyda kooxaha caynkii la doortaba cabdibilaha gaadho ku celceli cilmiga baaro colaad waa halaago cudurkaaga sii daran nabadaan cayaarne ku celceli cilmiga baaro caawiyayda badatay celiyahay qaxootiga cabashadu ma fiicnee ku celceli cilmiga baaro shaxaad waa lacaayo ceebbu kugu ridaaye camal baad rabtaaye ku celceli cilmiga baaro cawiman ka leexsani cidda taagta daran caqligiin madigasha ku celceli cilmiga baaro ciqaab soo ma dhalin kulligeen camiman ciddee maanta laba ku celceli cilmiga bara ceebtiin haddaa hirto cadowgiin hadiirsado caynkaa ma nololbaa ku celceli cilmiga baro waa yahay intaasay ku dhammaatay waa midhihii oo sidooda loo akhriyay dabcan muusikaysta iyo alxamaystana way joogaan oo dad kalaa kasii faa'iidaysan doona hadday doonaan alxan u samaynaya laakiin anagu ujeedada waxay ahayd in dadka waxbarashada la jeclaysiiyo maadaama aan macallimiin nahay bahda macallimiinta iyo ardada aan ka mid nahay taas ayuunbaan yaan jeclayn oo aan u samaynay waxyaalaha nadmiga ama ashcaarta ana way ka saameyn badan yihiin hadallada caadiga saa darteed baa ardada loogu sameeyey waayahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh